halkani waa bartamaha xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis waxaana goobtan laga hirgeliyay maqaayad ay shirka ku yihiin ganacsato ka soo kala jeeda jaaliyadaha Soomaalida iyo Turkida ee ku nool gobolka Minnesota. ganacsatada maqaayadan hirgeliyay ayaa kala Cabdiraxmaan Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodale ee magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo Mustafa Faaruq oo ganacsade u dhashay wadanka Turkiga. Munaasabadda furitaanka maqaayadda Campus Cafe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry oo Soomaalida gobolku ay ku magacaabaan Yacquub Faray. Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis isla markaana mudane laga doorto xaafadan. Siyaad Cali oo ka mid ah guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis. Cabdulqaadir Eke oo ka tirsan guddoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed iyo bulshada ku nool xaafadda degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. waxaana mas'uuliyiintaas iyo maamulka maqaayaduba ay xariga ka jareen Campus Cafe oo albaabada loo furay. Mustafa Faaruq oo ka mid ah milkiilayaasha Campus Cafe ahna ganacsade ka soo jeeda wadanka Turkiga ayaa sheegay in muddo ahba uu jiray xiriirka ka dhaxeeya jaaliyadaha Soomaalida iyo Turkida ku nool gobolkan. My long time dream and at the same time riyadaydii iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dal ayaa maanta halkan timi. waxa kaliya ee hadda aanu u baahannahay waa inaan muujinno markii ugu horreysay wax isku darsiga labadan bulsho aanna sii wadno waxa lagu daydana ay noqoto. Cabdi Warsame oo xubin ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo laga soo doorto xaafadda maqaayadan laga hirgeliyay oo ka hadlayay munaasabadda furitaanka ayaa yiri Soomaalida Turkishku waxay leeyihiin maxay ahayd xiriir soo jireena xiriir 10 sano la soo dhaafay intii dawladda Erdogan jirtay aad isku keentay. maantana aad baan ugu faraxsanahay maqaayadii ugu horeysay oo Turkisha oo magaalada Minneapolis laga aasaaso inuu aasaasay nin Soomaali oo Cabdiraxmaan Kaahin la dhaho asagoo kaashanayo Faaruq. anigana sharaf weyn bay tahay inaan maanta meeshaan joogo waa xaafadaydii waa degmadaydii waana maqaayadaydii waxaan ila jooga Jacob Fry oo sanduuqa magaalada hadda la doortay asna uu ku mahadsan yahay inuu waqtigiisa qaaliga nala qaybsado uu nala furo meesha. duqa magaalada Minneapolis oo isna bogaadiyay midowga milkiilayaasha Campus Cafe ayaa sheegay in midowga ganacsatadani uu isu keenay dhaqamo kala duwan oo xambaarsan cunto macaan isla markaana muhiim u ah xaafadda sida Riverside. Jacob Fry oo ka hadlayay cunto dhaqameedka Soomaalida ayaa sheegay in cunto bilaa moos ah aanu cunin. Really what I was looking for was a dish including moss because I can't eat rice anymore. I can't eat any grain without moss. Dabahantii waxaan raadinayay cunno moos leh waayo hadda ma cuni karayo bariis aan moos lahayn ma cuni karayo wax cunno ah moos la'aantii. sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay inay samayn doonaan cunno lagu magacaabo duqa magaalada Jacob Fry oo moosna ku jiro. Cabdiraxmaan Kaahin oo ka mid ah milkiilayaasha Campus Cafe oo VOA la hadlay ayaa sheegay in muddo sanad ku dhow ay ka shaqaynayeen sidii u furi lahaayeen hal goob oo laga dhexeli karo cunto dhaqameed ka turjumaysa laba dal oo walaalo ah. maqaayadani inay noqoto maqaayad Soomaaliya Turkish waxa ay ku timiday jacayl walaalnimo iyo gacalnimo maadaama dadka Turkishka iyo dadka Soomaalidu ay taariikhiyan ay weligoodba walaalo soo ahaayeen imkana ay iskaga sii dhowyihiin dadka waxaan garanay in aan isku darro labadii cunto. marka barnaamijkan waxaan ka soo shaqaynay muddo ilaa 8 bilooda aniga iyo walaalkay Faaruq waxa marka barnaamijkaasi aan rabnaa inaan adduunyada ama dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ku daydaan oo cuntada Soomaalida iyo cuntada Turkishka marka la isdhex geliyo wax cajiib ah ka soo baxa. tani markii madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka gurmaday abaarihii iyo macluushii lagu leeday ee ka dhacay Soomaaliya sanadkii 2011 ayaa waxa gobolka Minnesota lagu arkay isu soo dhawaanshaha jaaliyadaha Soomaalida iyo Turkida. waxaana gobolkan dhowr mar booqasho ku yimid mas'uuliyiin ka socotay wadanka Turkiga oo kulamo la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan. talabadan labada ganacsadana waxa ay tilmaamaysaa in xiriirka Soomaalida iyo Turkidu uu haatan ka gudbay xadka dawladaha una talaabay heerka jaaliyadaha. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.